Taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac uu sababay qaraxii saaka ka dhacay ex-kantarool Afgoye magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa sheegay ugu dambeyntii tirada rasmiga ah ay hayaan isla markaana ay galabta soo ogaadeen kadib markay booqdeen goobaha isbitaalada iyo weliba goobaha kala duwan ee dadka saaka ku waxyeeloobay qaraxii ex-kantarool Afgoye ka dhacay ay soo tiro koobeen ay gaarayaan dhimashadu 79 ruux halka sidoo kale 100 iyo dhowr qofna ay dhaawac yihiin. Tirada ayaa laga yaabaa inay intaa ka sii siyaado maadaama dhaawacyada qaybo ka mid ah laga deyrinayo xaaladooda. Taliyaha oo ka hadlaya arrimaha waxa hadaladiisa ka mid ahaa taasi u diraya dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ex-control Afgoye taasoo cadowga ummadda Soomaaliyeed uu ku gumaaday arday badan oo jaamacado u socday iyo dad ku mashquulsanaa aroortii u soo kalaxay risqoodii inay caruurtooda raashin u doontaan aroortii meesha isugu yimi. dhacdadaasi waxay dhacday saaka 7:15 daqiiqo kadibna waxaa booliisku soo gaaray isla goobtii 10 daqiiqo kadib annaguna waxaanu nimi 8 oo waxla geerida halkaa ka dhacday iyo baaxadda ay leekayd iyo shirqoolku intuu leekaa iyo ciidamadu si ay isu hor istaageen xaalad cakiran oo adag bay ahayd. tirada marka la sheegi karay ma suuragal ma ahayn waqtiga iyo xaaladda lagu jiro in la sheego waa garan kartaa meel in ka badan 70 qofood ay ku dhinteen in la yiraaho muxuu ahayn ta saacadiiba la soo istaagay intaas dhimatay. marka waxaanu islahayn waqtiga saxa ah ee la sheegi karo ee ummadda Soomaaliyeed loo sheegi karo waxa xaqaa'iq jira ayaanu la sugaynaa ugu sabsanay taasoo waqtigeedii galabta markaanu soo eegnay isbitaalada soo tirinay meel walba aan soo eegnay aan rabo inaan u sheego tirada saxda ah ee dadku doonayay 79 qof ayaa ku dhintay ilaa saaka ilaa hadeer waana dhici kartaa qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 bayna ku sii darsamaan maxaa yeelay dad badan oo dhaawac jira dhaawacna 100 iyo xoogaa buu ahaa. waanu soo kormeernay waanu soo booqanay golaha wasiirada oo guddi loo saaray anigu aan ka mid ahaa duqa magaaladuna ka mid ahaa ayaa soo kormeeray ciidamada booliiska oo meesha ka shaqeynayay iyo kuwii kontaroolka joogay iyo arday jaamacadda u socotay oo meesha maraysa 2 baasaareed iyo ummad badan ayaa meesha saaka ku halaagsantay oo cadowgu ugu talagalay waa u tacsiideynaa dalka iyo dadkaba. waxaanu leenahay mar labaad Allah u naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iyaga naftooda ay kaga dhinteen saraakiil iyo saraakiil xigeen meesha shaqada ka joogteen iyagana iyo xaasaskooda tacsiibaan u dirayaa. waxayna u diideen baabuurkaasi inuu magaalada soo dhex galo waa garan karta dadka xamar yaqaana kontaroolka Afgoye meesha ku yaalo. marka sidaasaan rabaa dadka inaan ugu bayaaniyo inaan yaani waqtiga munaasabka ah ee la sheegi karo waxa gaaray qaraxan ayaa waxaa sababay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo isku lagu qarxiyay ex-kantarool Afgoye magaalada Muqdisho. bartan ex-kantarool Afgoye waa bar mashquul badan isla markaana ay ku sugnaa bar kantarool oo laga sugo amniga magaalada Muqdisho. waxa goobta ku sugnaa ciidamada amniga iyo kuwa booliska qaybo ka mid ah waa goob laga qaado cashuuraha isla markaana wasaaradda maaliyadda ay laan ku leedahay lagana qaado cashuuraha baabuurta ka soo gala dhanka Afgoye. sidoo kale waa goob laga sugo amniga magaalada Muqdisho inuu ku sugan yihiin ciidamo iyadoona baabuurta ka soo gashay dhanka Afgoye ciidanku ay ku baaraan lagana sugo amniga. sida goob jooga goobta ku sugnaa cadeeyay gaari ay lahaayeen injineerinta Turkiga dhisayay wadada isku xidha magaalada Muqdisho iyo Afgoye ayaa lagu dhuftay baabuurkan ay sidee waxyaabaha qarxa iyadoona kadibna gaarigu qarxay. goobta ayaa waxayd goob mashquul badan oo ay ku sugnaayeen dadweyne iyo waliba shacab qaybihiisa kala duwan. qaybo ka mid ayaa goobta ka shaqaysanayay halka qaybo ka midna ay isticmaalayeen wadada arday u socotay jaamacado dadweyne shaqaalaha kala duwan ee qaybaha kala duwan ee shaqaalaha oo qaybo ka mid ay raasanayeen nolol maalmeedkooda iyo waliba kuwa kale u sii jeeday inay u safraan gobolada dalka iyo magaalooyinka Muqdisho la dariska ayaa meesha ku nafwaayay.
goobtan ayaa sidoo kale waxay tahay goob ay ka ambabaxaan baabuurta BLka ee u kala goosha xaafadaha magaalada Muqdisho iyo weliba sidoo kale kuwa u ambabaxa safarada gobolada iyo degmooyinka iyo magaalooyinka la deriska magaalada Muqdisho. goobta ayaa waxaa ka dhacay musiibaan qofna filanaynin, dad badan oo saaka guryahoodii kaga soo baxay ehelkoodii qaraabadoodii nabadgelyo iyo caafimaad ayaa goobta ku waayay naftooda. waxyaabaha murugada leh waxaa ka mid ah arday dhiganaysa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahaa dadkii ku nafwaayay. goobjoogayaasha ayaa cadeynaya siday wax u dhaceen iyo waxa indhahooda ku arkayeen. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inta dhimata Allah naxariisto, inta ku dhaawacantan Allah caafiyo. meeshan masiiba ka dhacday saaka. ana waxaan ka yimid ceelasha markaan ka yimid checkpoint markaan ku soo degay iyo qarax hore ka dhacay. marka ani gaariga soo socday waa u jeeday, laakiin gaari kale oo Turkida wadatay lagu dhuftay gaariga noociisa ma xaqiijinta. gaariga daynaan ku qiyaasay aniga koraan uga jeeday aniga. maxaa aragtay markii gaari oo Turkiga leeyahay lagu dhuftay gaariga. gaariga Turkiga lagu dhuftay staafkiisa iyo laba nin oo Turkiga. labada Turkiga iyo staafkooda waa la soo qaaday darbigaana lagu dhuftay marka kan gaarigana la soo qaaday proof tahay. marka labada Turkiga meeshan ka soo dhex baxeen iyagoo meyd ah way ku dhinteen, laakiin dadka kale xisaab ma laha. meesha jaamacad ahayd arday jaamacadan oo Muqdisho aad ugu baabay. saddex hoome waxba kama badbaadin, buugagtoodii waxooda intay buuxaan. qaaraan waa wacnay adiga weli la hadda buugagtooda waa kuwan, qaarna waa wacnay dadna waa weynay. marka dad